Bismillahirrahmanirrahiim waxaan oo wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka dhageysataan warbaahinta Naafic Show. Wargeyska New York Times ayaa goor dhow baahiyay warbixin la xiriirta dhaqdhaqaaqyada Mareykanka ee ku wajahan Iran. Warbixintu waxa ay sheegtay in wasaaradda dagaalka Mareykanka Pentagon-ka ay hadda kordhinayso ciidankeeda ku sugan gobolka, gaar ahaan maraakiibta dagaalka iyo kuwa xambaara diyaaradaha si ay u xoojiso joogitaankeeda military. Sidoo kale Pentagon-ku waxa uu madaxweyne Trump u gudbiyay liiska bartilmaameedka ee suurtagalka ah. Weeraradan uu Mareykanku ku qaadi karo Iran markan kuma koobnaan doonaan kaliya bartilmaameedka xarumaha nuclear-ka, balse waxaa qayb ka noqonaya kaydka gantaalada ridada dheer ee Iran, goobaha laga rido gantaalada iyo warshadaha sameeya hubkaas. Ujeedadu waa in la wiiqo awoodda Iran si aysan u helin fursad ay kaga jawaabto haddii la qaado tallaabo military. Warbixintu waxa ay sidoo kale sheegtay in mid ka mid ah ikhtiyaarada la tixgelinayo uu yahay in la diro ciidamo gaar ah oo tababar sare leh si ay howlgal gaar ah ugu fuliyaan gudaha Iran. Ciidamadan waxaa loo diri karaa inay beegsadaan xarumo si adag loo ilaaliyo oo aan si fudud gantaalada ku gaari karin, iyo sidoo kale meelaha laga hago ciidamada ilaalada kacaanka Iran. Si kooban, warbixintu waxa ay muujinaysaa in qorshaha Mareykanka aysan ku koobnayn hanjabaad hadal oo kaliya, balse ay jiraan diyaargarow muuqdo oo military oo la sii wado. Baro luqadda Ingiriiska maanta adigoo kalsooni sare isku qabo. Hadda waxaa la joogaa xilli Ingiriisku uu noqday luqadda ugu muhiimsan ee lagu shaqaysto, waxna lagu barto, laguna safro adduunka oo dhan. Haddii aad ku riyoonayso mustaqbal ifiya oo furan, barashada luqadda Ingiriiska waa furaha kuu horseedaya guul iyo fursado aan xadidnayn. Macadka barashada luqadaha ee Blue Screen Online wuxuu ku hayaa koorsooyin luqadda Ingiriiska oo ka kooban sida bilow, dhexdhexaad iyo dhammaystir. Koorsooyinkan waxaa si xirfadaysan kuu baraya macallimiin xirfad leh, iyadoo xoogga lagu saarayo ku hadalka luqadda Ingiriiska si kalsooni leh, qorista iyo akhriska si habboon oo sax ah, maqalka iyo fahamka luqadda si qoto dheer, xirfadaha nolosha iyo shaqada ku salaysan. Haddaba haddii aad danaynayso barasho barwaaqo ku horseedo, ka bara Blue Screen Online oo guji calaamadda WhatsApp-ka ee hoose. Wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ayaa hadal uu maanta ka jeediyay shirka ammaanka ee ka socda magaalada Munich waxa uu si cad digniin ugu diray Japan, isaga oo sheegay isku day kasta oo Japan ay ku doonayso inay dib u soo celiso awooddeeda military inay ka dhalan doonto in Shiinuhu uu qaado tallaabo ka khasaaro badan xaalad kasta oo ay hore u wajahday Japan.